السلام عليكم ورحمة الله. واني سلامي halkan waxaan rabay inaan hore yaraan live ka duubo anoo madaragtay waqti badan hayn ninkii madaragtay kale aan noo share gareeyo saddex kalmadood baan rabay 3 minute baan rabaa inaan madaragtay aan runtii wax noo aan isdhaafsano waxaan isdhaafsanayna waxa weeyaan arrinka madaragtay Fuad horta walaalayaal ilaahay baan idinku dhaarshay Fuad cadowgiis waayo Fuad ayuu ka soo cararay Fuad ayaa raadinayay Fuad raggu kooraan ka baryay Fuad dadku cadaalad darri uu raadsanayay Fuad ma aragtay ummaddu uu ka soo cararay uu ilaa iyo Ethiopia u yimid Fuad waayo Fuad cadowgiisa ayuu ahaa cadowgiisa koobaad inaan fahanno horta waa muhiim jiddan Fuad maalintu Ethiopia imanayay niman buu u haystay cadow oo Fuad cadow u ah Fuad markuu Ethiopia joogay uu dhibaatadiisa nooga sheekeynay uu videoga soo galay Fuad uu noo sheegay cid uu ka soo tagay Fuad wuxuu noo sheegay in mad aragtay oo waliba sorry iga yar la hada Fuad wuxuu noo sheegay waliba in oo xaq darri nin coronela iyo dawladdiisu ay mad aragtay ay dhibaato u geysanayeen uu ka soo cararay so haddii uu Fuad noo sheegay cadowgiisa cadowga Fuad maxay sameeyeen marka cadowga Fuad waxay ahaayeen dawladda oo raadinaysa Fuad dawladdu waxay raadinaysay Fuadna wuxuu ogaa cadowgiisu inay tahay dawladda Fuad wuxuu ka baxsanayay dawladda Fuad wuxuu tagay Ethiopia good so cadowga koobaad the number one enemy uu Fuad lahaa waa dawladda uu ka baxsaday oo Ethiopia u tagay Ethiopia Fuad markuu tagay waa maxay haddana cadowga kale u yeeshay cadowga labaad u yeeshana way Fuad dilay dawladda ka soko waxa weeyaan waa Ethiopia why maxaa inoo daliila waxa inoo daliila walaalayaal dawladda Ethiopia haddii Fuad ay rabin in la celiyo Fuad lama celiyeen weligii iska daa qof basaase kumaan kumdada hadday isku dayaan xitaa dawladda Djibouti hadday ciidan soo diraanna may qaadeen maxaa nooga daliila aadan rooble jeelka gabadh baa lagala baxsaday nin waxa la baxsaday labaala ah oo isagoo isku dhow yihiin wuxuu aadan rooble geeyay dalka Ethiopia markay geeyeen dawladda Djibouti maxay u soo qaadi kari waayeen aadan rooble haddii ay awoodaan aadan rooble maxay u soo qaban kari waayeen Umar Cilmi Khayre wuxuu ka baxsay markii FLCST iyo buuqii u dhacay waa kii baxay Ethiopia joogay Ethiopia maxaa looga soo qaadi waayay hadday dawladda Djibouti ay awoodeen Ethiopia ka soo qaadato waxay rabto taasi waxay ni cadeynaysaa walaalayaal in dawladda Ethiopia ciday rabto mooyaan inay dhiibto mooyaan in nin kala qaadi kareen taasi maxay meesha ka saaraysaa waxay meesha ka saaraysaa fataalkaad rabtida haw basaaskaad rabtida haw cidii rabto ha ku soo dirto luguma qaadi karayo hadday dawladda Djibouti ee dawladda Ethiopia ay ogoleen ha isla fahanno dawladda Ethiopia hadday ogoleen in Fuad la qaado Fuad ma la qaadi kari cid kastoo farta ku fiiqda waa mayawi man qaylinaya ee iga raale hadadan qaylinaya bal waxayo waan iska rakacsanahay waxa weeyaan arrin aanu rabin inaan ka hadalno ayay keentay inaan ka hadalno waxa weeyaan walaalayaal haddaba midaan isla fahanno tani waa tii ku dhacday janaaliya aadan rooble weeyaan tani waa tii ku dhacday janaaliya aadan rooble oo aadan rooblena waagi istaad guuleed sorry istaad guuleed waa tu aadan rooble micneynayay weeyaan waa kii aadan rooble noo sheegayay lahaa dhibaatadii ku dhacday lawi cadda maxaa dhacay walaalayaal inaan u baahanno inaan cashir aan ka qaadanno aan cilmi mad aragtay aan ka baranno weeyaan wixii dhacay sidaan waxa maanta aan mad aragtay aan ugu hortagno waa maxay markaa waxa dhacay waxa weeyaan aadan rooble wuxuu galay dawladda Djibouti isagoo dawladda Djibouti ku dhex jira oo Djibouti dhex jooga negotiation wada ayaa la baxay oo janaala loo tagay janaala laga yiri ninkii aadan dawladdu la heshiiyay aadan uu ku dilayaa laga yiri aadan iska ilaali baa laga yiri janaala loo basaasay wala dhex socday sida maanta nilii dhex socdo baa shalayna loo dhex socday maarif markii janaala loo tagay waa idinkii ogaa janaale muu rabin inuu aadan rooble dilo rasaas buu ku dhiftay aadan rooble dhaawac buu noqday aadan rooble wuxuu yiri janaala waa walaalkii buu
waan isla dhimanay buu yidhi waxaan isla soo marnay buu yidhi FLCS aniga shikigagama gal yuu yidhi whatever happens raggaas shalay toole jambalkii noo dhigayay uu ku qorayay buugga madaragtay leclerc muxuu ahaa de la mirouge uu aadan rabal ka sheekeynayo waa waxyaalo inaan u baahano inaan baranno oo annagu aan wax ku fahanno weeyaan jambalkana loo dhigayo marka waxa weeyaan walaalayaal we know the source and the destination haddaan ogsoonahay from what destination haddaan ogsoonahay the park iyo destinationka iyo the park haddaan ogsoonahay waxa laga soo dhaqaaqay waa Djibouti waxa daba ordaysay ninkan waa Djibouti ninkan wuxuu u galay waa Ethiopia waxa soo celisay ninkan waa Ethiopia soo basaasku muxuu sheegi karaa anu waxaan rabaa maanta inaan niga dhaadhiciyo ninka basaasku muxuu sheegi karaa nacam waxa muhiimka oo basaasku sheegi karayo ayaan rabaa inaan ogaado anigu ninka ku raadinaya waa dawladda Djibouti waxa ninkan ku daba jira waa dawladda Djibouti ninkan wuxuu gacanta ugu jira waa dawladda Ethiopia ninkan waxa celisay waa dawladda Ethiopia ninka basaaska ee sheegay idhaahdo waa kan Fuad muxuu ku sheegi karaa oo muxuu qaban karaa waxa ma qaban karaa waxa ku filan in la yiraahdo ninkan magangeliya siinay lama qaadayo ayaa ku filay dawladda Djibouti wax uu ka qaadi karayo basaas ma jirto ee weligiin waxaan lagu kala jabiyay macaarido waxa in taariikhda 77 ilaa hadda ciise basaas buu leeyahay lagu kala jabinayo weligiinba reer Djibouti basaasiin baa tihiin baan lagu kala jabinayo weligiinba war basaasku muxuu sheegi karaa ninkan Ethiopia u tagay Ethiopia qaabishay wala qaabilo meel baa la geeyay muxuu sheegi karaa basaasku halkan buu nacnac ka iibsaday haye kaala yo qaada Djibouti baa aragtay waa loo sheegay basaaskii baa telefoon qaatay wuxuu yiri war waa kan ninkii Fuad de maxaad ka qaadi kartaa war waa kan ninkii Hebel de maxaad ka qaadi kartaa haddii wax la qaadi karayo waa kan Somaliland hal laga soo qaado haddii wax la qaadi karayo waa kan Somaliland hal laga soo qaado lama soo qaadi karayo nin la rabin in lagu siiyo lama qaadi karayo marka waxa weeye waa ay cadowgeena koobaad waayo cadowga Fuad ee koobaad waa dadku ka soo cararay weeyaan ee dulmiga u geystay weeyaan ee isaga dilay weeyaan waa ay cadowga labaad waa ninku aaminay weeyaan waa ninku u tagay weeyaan Ethiopia ee protection weydiistay uu ka iri aamin bixi uu qaadu celiyay weeyaan waa ka labadii sacadowna waa kuwaas ma haddii ay ku dhex jiraan basaas iyo dad baa basaasay hadday jirto de basaasku ma maanta u baahnay inaan ka sheekaysano anagu muxuu noo taraya anagu kii lacagta bixinaya baan raaxaysanaaba hadduu basaas jiro kii lacagta basaaska siinaya haysanaaba anagu maxaa naga galay ka basaasay marka walaalayaal ninkani wuxuu u baahan yahay in loo hiiliyo u baahan yahay in la garab joogsado u baahan yahay in loo banaan baxo u baahan yahay in safaaradaha loogu hor mudaharaado u baahan yahay in jeelka uu ku jiro maanta 30 iyo 100 qof oo isaga la mid ah inay jeelka soo gasho ay tiraahdo waan garab joognaa buu u baahan yahay uma baahna inaan ka sheekaysano annaka wax dhexdeena kaniya uma baahna Fuad ninka dilay we know dadka raadinaya we knows dadka lacagaha ku bixinaya we knows kii dhiibayna we knows marka labada xaqa dulmiga ugu weyn ka galay waa dawladda Djibouti iyo dawladda Ethiopia yaanan niligu daalin shakhsi hadduu jirana qof basaasay hadduu jirana waxba muu sheegin wuxuu sheegayo aawe Fuad halkan buu gaariga veerku ku jira buu oran karaa bas mise gaariga blue ku jira wax ka badan ma oran karo wax ka badanna ma mateli karo wax badanna ma sheegi karo wax badanna ma intaana in la wareysto dawladdu way localizeyn kartaa iyadoo dhan loo baahnayn marka waxa weeye nin dawlad ku dhex jiray oo isagu dawlad isku dhiibay inaan mad aragtay aan orano shakhsi baa xanibi kara shakhsi baa wax ka qaadi kara way dhici kartaa inuu shakhsi sheego waxyaalo yar la sheego laakiin muhiimadda weyn waxaasi ma maxaa taana daliil nooga taana daliisheenu waxa weeyaan walaalayaal anigu xadiis badan ma yaqaanay laakiin waaban xasuustay xadiis baan maqlay mar dhowr xadiis baan yaqaanaa xadiiska waxa weeyaan waa dilkii Usman bin Affan radiyallahu anhu waa la dilay waxa dilay niman khawaarij oo ciidanka kamid ahaa Usman
cusmaan ciidankiisa rag ka mid ahaa oo khawaarij ayaa dilay cusmaan markay dileen cusmaan wuxuu kuusaan la ahaa iyo faamiliya qaraabadiisu nin la yidhaahdo mucaawiye oo ardul sham haysanayay ardul sham nin xakumayay ardul sham ayuu mucaawiye la ahaa tolkii bay ahaayeen markii ay maqleen cumar baa la dilay cali baa loo dhiibay xilka cali baa maamulayay islaamka markaasuu mucaawiye intuu yimiday buu yidhi war raggii ninkii dilay walaalkee baan rabaa cumarow midir caliyow cali intu wuxuu ka yidhi wari sug buu yidhi raggu ciidankay ku hoos jiraan buu yidhi raggu annagay naga mid yihiin buu yidhi raggaa maanta ma taaban karna buu yidhi iska daa buu yidhi arrinkano han ka soconno buu yidhi mogta cali mucaawiyana wuxuu yidhi may labaduba way saxsanaayeen nin wuxuu u socday ninkii dilay ninka kalena wuxuu u socday maanta maahine maalin kale dagaalaa dhacay waa la isdilay waxaa la ogaaday inuu cali saxsanaa cali baa ka saxsanaa mucaawiye wuxuu ka saxsanaa wuxuu lahaa war raggan annakay naga mid yihiina maalin kalaan u dhiganaynaa war haddii ay xitaa nagu jiraan basaasnimo annaka nagu jiraan ma maantaan ka hadli lahayn taas ma maantaan ka hadli lahayn oon iyaka u sheegi lahayn ma maantaan maxay ahaydeen isagoo biyo lagu daadinayo isagoo mad aragtee kooraan la qabasiinayo oo le war halkee martay sheeg laga leeyahay ayaa naga og uu odhan karayay war ma sheegayo meelna ayaan warkiisa facebook u haynay ayaan facebook ka sheekeynaynay halkuu marayay iyo halkuu ku socday isagana ilaahay baa ogaa inuu lahaa ma garanayo waxaad sheegaysiin habasa noqoto hadal waxaan kusoo gunaanadayaa waxaa weeyaan jambalkii aadan roobli iyo maaragtay loo dhigay jannaale annaga inay noo noqoto weeyaan wake up inaan annaku ka foojignaano weeyaan in annaka jambalna loo dhigo annaga hadduu wax la dhex yaallo annakay noo taallaa laakiin wixii cadowga koowaad waa la garanayaa waa RBB dowladda dhiibtayna iyada amar la-aanteedna waa dowladda Ethiopia so waxa kale waa iska bilaa macni waa wax la dhameynayo weeyaan waxa kale waa wax la dhameyn karo waa sidoo cali yidhi weeyaan marka waxa weeyaan walaalayaal xabad kale oo muhiim ah aniga iga timiday baan ku darsanayaa xabad ani iga timiday ayaan ku darsanayaa way qurux badnayd inaan ka aamusno arrinkaas anu gaar ahaan arrinkan waan ka aamusnaa maba rabinba nin arrin uu leeyahay inaan ka hadlo nin dariiquu maray inaan ka hadlo balse laakiin haddii ay dhacday waxaan maalin dhaweed halkaa ka arkayay nin walaakaya oo aan arkayay ee lalahaa way isla socdeen oo barkhad la yidhaahdo way isla socdeen ninkaasoo oo dee laga yidhi daadaa ka dambeeyey isna ismicneeyey oo intuu meel soo galay buu ka hadlayey wuxuu lahaa ninkaasi halkan baan marnay in halkaabuu ila fadhiyey isaga waxaa ku qasbay inuu hadlo waxaa laga yidhahdaa dhiib okay isaga laftigiisu inuu hadlo ma ahayn maxay sababayn kartaa bal aqligeenna haddaan ka shaqaysiino idinkuna ila eego fuaad maanta muxuu videoga u keenay videoga fuaad maanta maxaa loo keenay markuu kaa yar hadlay kadib maxaa videoga loo keenay good maxaa dhici kara waa inaan aqliga ka shaqaysiino waxaa dhici kara ninkii yaraayee barkhad muxuu ahaaye videogiisii baa la keenay isagoo ka hadlayo leh wallahi fuaad waan isla joognay waxaan isla joognay madartay adiis waxa madartay isla soconay caynka hotel baan isla fadhinay barkhad markaa isagu shacabku u micneynaya wuxuu isleeyahay ismicnee anigu ninkaa ma dhiibin dheh laakiin dowladda marka aqli lagula ciyaaraya fuaad baa la qaadiyo videogaaba loo geyni fuaad isagoo jeelka ku dhex jira ayaa fuaad videoga loo geyni oo laga odhan karaa fuaad daawo ninkii saaxiibkaa isla socoteen waa kane fuaad baa daawanaya muxuu arkayaa barkhadoo ka sheekeynayuu arkayaa wallahi xagga ma isla soconay diriiskiisii baa halkan ii yaalla waa ka soo duubay wuxuu yidhi war waan ku cafiyey buu ku yidhi waan ku cafiyey war waan ku cafiyey buu ka yidhi laakiin isagu haddana message buu bixinayay uu lahaa war waxaan maaha muhiimku iyo socda muhiimaddu waa halka hore marka geemamka lagu ciyaari karayo c'est pas facile videogii aad halkan ku hadlayseen inta la qaada laga odhanayaa fuaad waa kan saaxiibkaaba kaa sheekeynayay ka kalena waxay ka ahayd ismicne labadoodaba halkaasaa lagu kala dhex dilay waa arrinkii jannaale iyo aadan roble waa arrinkii jannaale iyo aadan roble marka haddii aan taariikhda baran weyn oo dadkeenna dhibaatadii gaaray aan daraasin weyn annaguna sidaa un baan silbanaynaa waana tana silbasiisay laakiin waxaan leeyahay haddii mid annaka naga mida uu qalad galo annakay noo taallaa RBB uma taalo
annaka noo taala annakaana la dhaadhici doona RBB waxay rabtaa wax kala ma ina halkan markaad soo gashiin inay RBB tiraahdo eega waa kuwaas way isdirirayaan eega oo halkan baba annaka noo kala baxo RBB taasay rabtaa taanaga ma helayaan ka annaka nagu dhex jira ee wax noo geysta annaga dilayna RBB horteed laakiin annagu cadowgeega koobaad waa RBB waa ina saa wax u xisaabtanaa fuaad hadalkiisana ha eegina hadalku laba dhinac buu dhici karaa fuaad marka la daawasiyo nin saaxiibkiiyo ka sheekeynaya secretkii isaga iyo saaxiibkii dhex maray ayuu ka sheekeyn karaa waa wax dhici kara nacam anigu un baa iska le saas fuaad marka la daawasiyo ali cudinoo ku haya wallahi galabtii waan wada baxnay bas baan wada raacnay baabuur baan wada raacnay isagoo leh uu fuaadna isaga la garaacayuu diiday inuu sheego waxaas markuu arko dad kale oo ka sheekeynaya fuaad muxuu odhanaya marka maxaa laga odhanaya waa kuwan ku sheegeen baa laga odhan de waa kuwanoo raggii ay isla socoteen ayaa ku sheegaa laga odhanayaa fuaadna muxuu kusoo jawaabay waa nicafiyey buu kusoo jawaabay laakiin labadanba nina waa nin xidhan oo xaqiiqda ma ogaan karo ninka kalena xakan buu joogaayo inuu ismicneeyuu rabaa marka inaana laga dhex faa'iidaysanin kor uga baxa fuaad baan u hadlaynaa ee kama hadlayno wixii kale jirana fuaad rag baale dhiigiisa gartiisana waa la qaadi doonaa sidii cali iyo maaragtay cumar ay mucaawiya ay sameeyeen wixii ninkaa dilay waa la soo saari doonaa balse maalin baa la soo saari doonaa maanta isagaa naga xidhan isaga inaan soo saarno weeyaan waan naguna salaamay waan kacsanahay waayo in badan baan aamusnayn ma rabin inaan arrimahan ka hadalno laakiin waxaan aragnay inuu muusku annaka nagu soo noqonayo han iska qabanno ka nagu dhex jiray qalad galo annaka qabsanayna annaka qabsanayna haddii ay run tahay weeyaan haddii ay beenahayna fuaad nagamuu rabin inaan kala jabno fuaad muu rabin inaan annaku iska qabsanno fuaadna muu rabin wuxuu rabay inaan xaqa u helino iyo cadaaladde war xaqa iyo cadaaladda aanu helino hana ka dayno wax uu fuaad isaguba diiday inuu sheego inaan annagu baraha bulshada aan ka sheegno inal ilaahay baa ogin ninkaa loo dilay waa idinka arkay nabarada ku yaalla in la dilay waa siduu wax u sheego ayaan annaguna isku qasbaynaa inaan sheegno sheekadiisii ka sheekayno marka walaalayaal han foojignaano fuaad waa laga gardaran yahay dawladdaana ka gardaran oo malaayiin ku bixisa sida loo soo qabto dawladda Etoobiyana way ogolaatay inay sii daysay marka meeshii laga sii daayay iyo kii raadinayayba waan garanaynaaye kuwa dhexda jooga maxay sheegayaan de hadday xitaa wax sheegaanna maxay sheegayaan jeans blue yu watay iyo koofiyad buu watay iyo halkan buu maray bay odhan karaane ma qaadi karaan oo ma gudbin karaan ma qaadin karaan oo ma celin karaan ma qaadi karaan oo wax kuma samayn karaan marka waxa weeye cadowgaan garanaynaa iyaanu ku meermeerin meelo soke wassalaamu calaykum waraxmatullah waan isoo salaamayaa haddii ay qayle iyo aadna ma aragtay halkan aanu yaro kacsanaa hal laga raalli ahaado wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan isoo salaamaya peace and love